idin salaama walaalaha aan halkan ku midoobnay. Waa maalin cusub, saacad cusub, fiideo cusub iyo qayb cusub. Ku soo dhawaada qaybtii labaad ee buugga 9 day routine. Hakani waa hoyga akhriska buugta. Haddii aad tahay dadka wax akhriska jecel, caqabadna ka haysato wax akhriska, haysdhibin ee halkan kala soco buug joogta ah. Fadlan muuqaalka like, saar channelkana subscribe gareyso si aad ula socoti buugta taxanaha. Waxayna ku bilaabanaysaa sidan qaybta labaad. Mar kasta oo aad la kulanto iska caabin badan ayaa ka sii muhiimsan farshaxankaaga mashruucaaga, ganacsigaaga aan caddayn iyo inta badan ee aad ku qanacsan tahay. Waxaad dareemi doontaa markaad ugu dambayntii samayso. Markaad fahamto muhiimadda joogtada ah iyo qaybaha kala duwan ee ka qayb qaata waxtarkeeda, waxaad hadda ku qalabaysan tahay aqoonta aad ku qaabayn karto isbeddelka joogtada ah ee 9 maalmood. Cutubyada soo socda waxaanu si qoto dheer ugu dhex milmi doonaa waxyaabaha gaarka ah ee qaabaynta iyo hirgelinta hawlahaaga joogtada ah si aan u kordhino kartidaada u gaadho yoolalkaaga oo aad khibrad u hesho kobaca shakhsi ahaaneed iyo guusha. Cutubka 2: dejinta jadwalkaaga joogtada ah ee 9 maalmood. 2. Dejinta yoolal iyo ujeedooyin cad. Ka hor intaadan bilaabin safarkaaga joogtada ah ee 9 maalmood ah, waxaa muhiim ah inaad dejiso yoolal cad oo gaar ah. Adigoon maskaxda ku hayn meel aad u socoto, way adag tahay in la qaabeeyo hab joogto ah oo kuu horseedi doona guul. Waqti si aad uga fikirto waxa aad rabto inaad ku guulaysato 9 maalmood ee soo socda. Haddii ay hagaajinayso caafimaadkaaga, horumarinta xirfadaada, ama hagaajinta cilaaqaadkaaga, si cad u qeex ujeedooyinkaaga. Xasuusnow, hadafyada gaarka ah la cabiri karo, la gaari karo, la xiriira iyo waqti xiran. Yoolalka SMART ayaa ah kuwa ugu waxtarka badan. 2. Aqoonsiga mudnaantaada. Iyadoo hadafyadaadu jiraan, waa waqtigii aad aqoonsan lahayd mudnaantaada. Wax walba oo noloshu ma laha muhiimad isku mid ah. Jadwalkaaga joogtada ah waa inuu ka turjumayaa taas. Go'aanso qaybaha noloshaada ee u baahan dareenka ugu badan, una qoondee waqtigaaga iyo tamartaada si habboon. Tixgeli dhinacyada kala duwan ee noloshaada sida shaqada, qoyska, caafimaadka, korriinka shakhsi ahaaneed iyo waqtiga firaaqada. Markaad aqoonsato waxyaabaha mudnaanta leh, waxaad xaqiijin kartaa in jadwalkaaga caadiga ahi uu si fiican isu dheeli tiran yahay oo uu la socdo qiyamkaaga. 3. Abuuritaanka jadwal dheelitiran. Dheelitirnaanta ayaa fure u ah ilaalinta guusha iyo wanaagga mustaqbalka fog. Markaad naqshadayso 9 maalmood ee caadiga ah, ku dadaal sinaan caafimaad leh oo u dhexeeya shaqada iyo waqtiga firaaqada, wax soo saarka iyo nasashada, iyo samaqabka jidhka iyo maskaxda. Ku biir waxqabadyada nafaqeeya dhammaan dhinacyada noloshaada. Xusuusnow in joogtada ah ee aad u adag ama diiradda saaraya oo keliya wax soo saarka ay keeni karto gubasho, halka joogtada ah oo aad u jilicsan ay caqabad ku noqon karto horumarkaaga. Soo hel dheelitirka saxda ah ee adiga kuu shaqaynaya. 4. Ku habboonayntaada joogtada ah nooca qofnimadaada. Dhammaanteen waxaan nahay shakhsiyaad gaar ah oo leh dooqiyo iyo baahiyo kala duwan. Nidaamyada hal cabirku habboon dhammaan waxaa laga yaabaa inaysan u shaqayn qof walba. Tixgeli nooca shakhsiyadaada, laxankaaga dabiiciga ah, iyo heerarka tamartaada markaad naqshadaynayso 9 maalmood ee caadiga ah. Introverts ayaa laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan inay ku daraan waxqabadyo aamusan iyo kuwo milicsi ah oo ku jira howlahooda joogtada ah, halka kuwa xagjirka ah ay ku koraan isdhexgalka bulshada iyo shaqada. Iskaashiga. Tixgeli meelaha aad ku fiican tahay, meelaha aad ku liidato, iyo waxa aad door bidayso si aad u abuurto hawl joogto ah oo adiga gaar ahaan adiga kugu habboon. Adiga oo dejinaya yoolal cad, aqoonsashada mudnaantaada, abuurista jadwal dheelitiran oo ku habboon nooca
shakhsiyadaada waxaad seeska u dhigaysaa isbeddel guul leh oo 9 eber maalmood ah. Cutubyada soo socda waxaanu si qoto dheer ugu sii falanqayn doonaa qaybo gaar ah oo ka mid ah hawlahaaga caadiga ah, annagoo ku siin doona xeelado iyo farsamooyin wax ku ool ah oo aad ku wanaajiso qayb kasta oo noloshaada ah. U diyaar garow inaad gasho safar ishelid, korriin iyo isbeddel ah markaad qabsanayso awoodda hawl 9 eber maalmood oo si wanaagsan loo qaabeeyey. Cutubka 3. Dhibaatooyinka subaxda ee maalinta. Wax soo saarka. 3. Hal awooda joogtada subaxda. Habka aad u bilowdo maalintaada ayaa dejisa codka inta ka hartay. Jadwalka subaxda ee si wanaagsan loo farsameeyey wuxuu saameyn weyn ku yeelan karaa wax soo saarkaaga, diiradaada iyo guud ahaan wanaagga. Markaad waqti u hurto inaad maskaxdaada, jidhkaaga iyo ruuxaaga ku quudiso subaxdii, waxaad naftaada u diyaarinaysaa maalin guul leh oo dhammaystiran oo soo socota. Cutubkan waxaynu ku baadhi doonaa awoodda hawl maalmeedka subaxnimo iyo waxyaabaha muhiimka ah. 3. Qodobada subaxnimada waxtarka leh. Caado subax oo wax ku ool ah waxay ka kooban tahay hawlo ula kac ah oo ku xoojinaya oo kuu diyaarinaya maalinta. Bilow inaad ku darto waxqabadyo adiga kugu habboon oo la socda yoolalkaaga iyo qiyamkaaga. Qaar ka mid ah walxaha caadiga ah ee subaxda waxaa ka mid ah ka fiirsashada ama ku dhaqanka miyir qabka, joornaalka, jimicsiga ama dhaqdhaqaaqa, xaqiijinta ama waxqabadka mahadnaqa, iyo quraac caafimaad leh. Ku tijaabi hawlo kala duwan si aad u heshid waxa adiga kugu fiican. 3. Farsamooyinka kobcinta tamarta iyo diirada. Subaxnimadu mararka qaarkood waxay noqon kartaa mid adag, gaar ahaan haddii aad la halgamayso tamar yar ama ay ku adag tahay diiradda. Nasiib wanaag, waxaa jira farsamooyin aad ku dari karto jadwalkaaga subaxda si kor loogu qaado heerarka tamartaada oo kor loogu qaado diiradaada. Qaar ka mid ah farsamooyinka wax ku oolka ah waxaa ka mid ah cabitaanka koob biyo ah markaad soo toosto. Dib u habayntan yar yar waxay wax weyn ka beddeli kartaa sida aad dareemayso iyo waxqabadkaaga maalinta oo dhan. 4. Abuuritaanka jadwalka subaxnimo ee maskaxda leh. Maskaxdu waa dhaqanka in si buuxda loo joogo oo loo ogaado wakhtigan xaadirka ah. Adiga oo gasha dareenkaaga joogtada ah ee subaxda, waxaad kobcin kartaa dareen deganaansho, caddayn iyo ula kac ah. Tixgeli inaad ku darto farsamooyinka miyir qabka sida jimicsiga, neefsashada qoto dheer, kaad fiirsashada miyir qabka ah, ama si fudud u dhadhanka cabitaankaaga subaxda si miyir leh. Dhaqamadani waxay kaa caawin karaan inaad maalintaada ku bilowdo maskax cad oo foojignaan leh, taas oo kuu sahlaysa inaad ku dhex socoto caqabadaha nimco iyo fudayd. Marka aad aqbasho awoodda habsocodka subaxnimo ee si wanaagsan loo qaabeeyey, xasuusnow in joogtayntu ay fure u tahay ujeedo inaad samaysato caado subax oo aad si dhab ah u samayn karto maalin kasta. Xitaa haddii aad haysato wakhti xadidan, u hibaynta dhowr daqiiqo oo keliya jadwalkaaga subaxda waxay samayn kartaa saamayn weyn. Cutubka soo socda waxaan ku baari doonaa muhiimadda ay leedahay in la dhiso caadooyinka iyo jebinta kuwa xun, maadaama ay door muhiim ah ka ciyaaraan guusha 9 eberka maalmood ee caadiga ah. U diyaar garow inaad beddesho caadooyinkaaga oo fur awooddaada buuxda. Cutubka 4. Dhisidda habdhaqanka isbeddel waara. 4. Hal sayniska samaynta caadada. Caadooyinka waa xoogag awood leh oo qaabeeya nolosheenna. Fahamka sayniska ka dambeeya samaynta caadooyinka ayaa naga caawin kara inaan dhisno caadooyinka wanaagsan oo aan ka xorowno kuwa xun. Cutubkan waxaynu ku sahamin doonaa habdhaqanka caadada, doorka tilmaan bixinta iyo abaald marinaha iyo fikradda isdulsaarista caadada. Ka faa'iidaysiga
cilmiga samaynta caadooyinka waxaad abuuri kartaa isbeddel waara oo waxaad ka dhigi kartaa shaqadaada caadiga ah mid adiga kugu habboon. 4. Aqoonsiga kiciyaasha iyo tilmaamaha. Kiciyaasha iyo tilmaamuhu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan samaynta caadada. Waxay u dhaqmaan sidii calaamado nagu dhiirigeliya inaan ku lug yeelano dabeecadaha qaarkood. Marka la aqoonsanayo waxyaabaha keena caadooyinka togan iyo kuwa taban labadaba waxaynu qaadi karnaa tillaabooyin firfircoon si aan u xoojino kuwa togan una beddelno kuwa taban. Haddii ay tahay wakhti cayiman oo maalinta ah, meel gaar ah, ama xaalad shucuureed fahanka. Qaybihii hore si aad buugta u fahanti lana soco qaybta xigta. Nabaadiino.